saraakiil ka tirsan ciidanka amniga Puntland ee BSF ayaa maanta kormeer shaqo oo la xiriira adkeynta amniga ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa sidoo kale waxay taliyo ku xigeenka ciidanka asluubta Puntland iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ku wareejiyeen agab kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin dharka loo xiro maxaabiista marka la soo xiro. ciidanka BSF ayaa gacan weyn ka geysta xoojinta amniga jeelka waxayna wadaan qorshe ballaaran oo ay ku adkeynayaan amniga jeelka iyo guud ahaan magaalada Boosaaso. ciidanka BSF ayaa jeelasha waaweyn ee Puntland ka caawiya arrimo badan oo muhiim u ah shaqada socota. halka maanta waxaan ku nimid kormeer shaqo oo aan ku soo booqanay xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso. waxaan rabnaa inaan ku wareejino agabkan loogu talagalay maxaabiista ku xiran xabsiga Boosaaso. agabkan wuxuu ka kooban yahay dharka labada nooc ah waxa loogu talagalay maxaabiista xukuman iyo kuwa rumaanka ah. ma noqonayso markii u horeyso aanu ku wareejino ama keeno alaab nooca kana ama agab looga baahan yahay xabsiga. ma noqonayso markii u dhameysay xabsiga waxaan la leenahay xiriir dhow oo shaqo qadamna ciidanka BSF shaqada wanaagsan ee la qabtaan saraakiisha asluubta iyo ciidankooduna aad baan uga mahadcelinayaa. agabkana waxa bixiyay agaasimaha guud ee ciidanka BSF General Maxamed Ismaan. mana aha wixii u horeeyay uu xabsiga ugu deeqo mana noqonayso wixii ugu dhameeyay. Allah mahadla billahi tawfiiq. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. sida uu taliyadu sheegay waxaan ku wareejinaynaa saraakiisha asluubta taliyaha iyo taliye ku-xigeenka alaabtan. ciidanka BSF jaradaalkooda ayaa soo bixiyay. waxaan u nimaadnaa habeenkii anagu xoojin halkan gaadiidkan wuxuu yimaadaa xoojin waxay ka wardeeyaan jeelka maadaama ay tahay meeshii ugu muhiimsanayd oo Puntland maxaabiista badan ku xiran tahay. habeenkii waxaan ka wardeynaa saraakiishu shaqadooda iyagoo ku filan oo haysta. waxaan oranaynaa saraakiishu in shaqada meesha laga hayo si laba jibaaro maxaabiista dharkeedii waa kan si laba jibaaro. qofku intuu yimaado oo waardiye qabto inuu gurigiisa ku caraabo maaha oo soo seexday meesha qof kasta uu yimaado inuu habeenkii waardiyaha ka yahay uu aroortii waagu ugu bariyo. taliye ku-xigeenka jeelka weyn ee magaalada Boosaaso iyo taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Puntland ayaa gabagabadii u mahad celiyay madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa ciidanka difaaca Puntland ee BSF. aad u mahadsan yihiin ciidanka BSF oo aad noola shaqeeya oo xabsiga garab iyo gaashaanba u ah. waxay maanta noo keeneen oo kormeer shaqeeyago noogu yimi noo wadaan agabkii maxaabiista ay dharkii ay ummadda kaga duwanaayeen oo lagu aqoonsanayay oo laba nooc ah oo loogu talagalay rumaan iyo xukumane. BSF maaha markii ugu horeysay wax keento xabsiga wax badan bay keeneen wax badanna waa keeni doonaan. waana waxa weeye garabka iyo cududa xabsiga uu ku dhisan yahay waa ka mid. aad baan ugu mahadnaqaynaa agaasimaha BSF alaabtan uu bixiyay oo agabka maxaabiista ah iyagoo badan iyo agabkan waa ka sugaynaa. aad u mahadsan yihiin waanu ka gudoonnay waana ku shaqaynaynaa maxaabiista ciidii loogu talagalay waanu xirnaa waana gaarsiinaynaa. aad baanu ugu dhiirigelinaynaa uguna hambalyeynaa ee loogu talagalay ku talagalka maxaabiista inay uniform ahaan u gashadaan oo loogu talagalay muxuu ahaayay rumaan iyo xukunba ay isugu jiraan. waxa weeyaan shaqada haddii la isla shaqaynayo qolaba barbar qabato waxba ma xumaadaan. waa shaqo bilowba waxaan rajaynaynaa inay soo kordhin doonaan haddii alla sida ay sheegeen oo ay muxuu ahaayay wixii kale ay awoodaanna ay ku darayaan xabsiga wixii uu baahan yahay nagala kicin doonaan haddii alla idmo. marka dee waa idinka guddoonnay ciddii soo dhiibtay ee soo ganday sida guddoomiyaha agaasimaha guud dee waa u mahadnaqaynaa. wasalaamu calaykum.